كوغوري واحد يحاقص أيوة كوغوري أحمد حسن ديجي كوغوري حاولوا عمر محمود وعباد وكيشي ميركيدو يهي أفرتن جرام وذهب وأنا أخبرني نكاحها أيه وتزويجها بهذا المهر المذكور. الله أكبر ولله الحمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. إلهي سبحانه كيو أحمد حسن دقيق يحولون عمر محمود وحنكون بوريي سميرة محمد علي ومهر كيدو إلهي صدح $100 وعباد وكيشي كويديسان كرتنا حل كستوعي دوتو مهركاس موقع أقبشي سميرة وفاقبل. الله أكبر ولله الحمد. والله وحنكون فرحسنا هاي إلى أن عن قاضي وعنك أنجلي وأن كل حيري قبله أي رسل هاي إلى أن سمينه بور كهذا نفرد جماعي أما وذرات كعه أصبحوا قيسسك أي كسر جيران ذاتكني أي هل هو المهم أي قبتين ayaga inay isu dooreen ama barnaamijkooda inay dhalinyarada ay isguursadaan ayaga go'aanka ay leeyihiin laakiin ay u baahnaayeen gacan qabasho ku saabsan xafladan oo hoteelka lagu qabanayo iyo guryaha iyo wixii yani takaaliifta guurku u baahnaa in laga saacido ama laga garab siiyo. saaka waxaan samaynaynaa marka zawaajkii ama aqdul nikaaxi dhaqankii Soomaali kama aanan boodin geed fadhiyo badan ayaa jiray isweydiisashada iyo isasiinta iyo wixii ku saabsan maadaama ay dadku badan yihiin ma aanan halkan hadda inaan dadkii istaajino waxaan rabnaa gabadha in la siiyo waalidin siiyo wixii la dhihi lahaa shorta kad ayaan soo sameynay xaafadan ku soo sameynay. awa aqalgalku dadku dhex maray waa 10 qof 10kaas 5 ka mid ah way leeyihiin shanna inta ay leeyihiin marka fiirsan marka 10kaas qof waa 5 iyo 5 qoys walba wuxuu ka kooban yahay labada qof ee lamaanaha ah mid ayaa indara midka kalena inta ay leeyahay si ay gacanta isu qabtaan oo isu xanaaneeyaan oo ay yani noloshooda ay garab isu siiyaan. run ahaantii sida dad badan aaminsanaayeen maadaama barnaamijkan ee dhalinyaro waday waxay u muuqatay in uu wax aan macquul ahayn laakiin alxamdulillah wuxuu ilaahay wada mar walba way hirgalaan. hadafka ugu muhiimsan oo aan ka lahayn waxay ahayd in aan tusno bulshooyinka kale ee asaageen ah in Soomaaliya ay leedahay dhalinyaro Soomaaliyeed oo firfircoon oo dhalinyarada kale walaalood wax u qaban karo isla markaana ayagoo gacan shisheeye ah garab ka helin in ay kalsoonideena saas u soo noqoto. sidoo kale in aan ka shaqeyno farxadaha dhalinyarada Soomaaliyeed maxaa la dhahay maadaama bulshada ay u badan tahay dhalinyaro culeysyo badan aad oo kala kulannay maadaama barnaamijka uu ahaa barnaamijka markii ugu horeeyay Soomaaliya laga hirgeliyo dhalinyaro loo guurinayna waa ka warqabtaa hal qoys oo la dhisay ayaa mushkiladiisa iska badan tahay dhanka dhaqaalaha markii laga hadlayo maadaama dhalinyaradan ay ahayn dhalinyaro baahiyaha gaarka qabo in shaqo abuur loo sameeyay ay tahay xoogaa wax dhibaato noogu imaanaya oo dhankaas oo kala shirkadaha aan u tageeyay qaar badan oo waxaa jireen kalsoonidooda ay anaga nagu qabaan in ay aad u liidatay maadaama bulshada Soomaaliyeed looga bartay in wax la musuqmaasuqo wax la mardabeeyo laakiin alxamdulillah barnaamijka 3 bari iyo week markuu ka dhinaa inta badan ee shirkadaha ay jeclaayeen inay ka soo qayb qaataan la soo xiriireen maadaama ay arkeen xaqiiqda inay serious tahay baasha laakiin alxamdulillah markii ugu horeysay dadka ugu niyad wanaagsanaa ee shirkadaha waal fursad dahabshiil oo ahayd shirkadii ugu horeysay ee ku yaboohday inay qoyska ugu horeeya ee isu guurin doonto sidoo kale City Mall Furniture oo naga qaybta qalabeenta guryaha iyo nashqadeenta naga qayb naga weyn naga siisay qoys walba waxaan u sameynaynaa in aqalkii loo dhiso qalabkii aqalka ku bixi lahaa qaanda ee ugu yartahay in loo gado sidoo kale dhanka soorida iyo yarada arooskoodii iyo meherka nikaax wixii ku bixi lahaa iyo shaqo abuur waxaan ugu talagalnay guud ahaan 5,000 qoyskii baqtiyaansi waa lagu xiray lagu xulay dhalinyaradan wax qabiil iyo wax kala lagu sameeyay waxaa jira urur dhalinyarada naafada ah ee leeyihiin aan u xil saarnaa maadaama ayaga ay nooga ogaal badan yihiin dhanka dhalinyarada naafada isku jiraan
oo indhoolayaal oo kaliya ma ahan laakiin waa way badan yihiin marka maadaama ay urur leeyihiin waxa u kaashan ururka ay leeyihiin dadka madaxda u ah isla markaana waxa lagu xulinaya horta koow yaa diyaar ah yaa haysto gabar maadaama loo baahan yahay guur u baahan yahay lamaano kale ee dhalinyaradan isku mid ahayn ninka diyaar waxa ku jiraan dhalinyaro oo qorsheynaya markaas inay guursadaan oo kale oo nasiib u heleen laakiin inta qofoo diyaarka ahaa marka in la soo qoray list loo sameeyay oo lamaanahooda wada haysteen oo waalidkooda ogol yihiin macnaha labada dhan markii la soo qoray kadib waxa loo sameeyay baqtiyaa nasiib shanta qoys ugu horeysa ee soo baxeen aad iyo aad yoolka aan ku leenahay waxa waaye maadaama uu dhaxaad ee bulshada u tahay dhalinyaro in dhalinyarada ay istaagto ee wax u qabato isla dhalinyaradii oo kale dhalinyaradayna inaan isku tashano oo wax qabsano waxna bedelno anagoonan eegaynin cid kale ee maxaa la dhahayay gacantooda laakiin waxaan rabnaa awoodda ku jirta dhalinyarada iyo maskaxda ay leeyihiin in active laga dhigo isla markaana looga faa'iidaysto dhammaan dhalinyarada Soomaaliyeed barnaamijkan sidaa ka warqabtiin waxa uu istaagtay dhalinyaro Soomaaliyeed waxaana uu istaagtay dhalinyaro kale oo Soomaaliyeed ugu tagin oo kaliya dadka baahiyaha gaarka qabo laakiin mudnaanta koowaad mar walba waxaa iska leh dadka baahiyaha gaarka qabo waxaa insha Allah feeskeena labaad u noqon doonaa dhalinyarada qeybaha kale waxaa fariin qaas ah u diraya aabayaasha iyo hooyooyinka Soomaaliyeed inay guur u fududeeyaan dhalinyarada lagu adkeeyay dhalinyaro badan oo shaqaystaan jiraan laakiin awood u lahayn in ay guryo dhistaan ama ayagoo ka baqayaan qarashaadka loo diinayo aabayaasha qaar waxaa u diray ayagana fariin aabayaasha wiilasha 20 jirada iyo 25 jirada guryaha u joogaan maalin walba iska saddexaysanaya iska afreysanayo ka hor baahidaada inta iska badsan lahayd wiilasha guryaha ku jooga waxa loo guuriyaa aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay barnaamijkan aadka u qiimaha badan oo walaalaheen gurisamo noo suubiyeen iyo maalgeliyaasha shirkadahaba aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinayaa iyo wadaadkeena Sheekh Cabdilxayi khayr badan Allah siiyo iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed oo caawa ka soo qayb gashay barnaamijkan aad iyo aad saaka ilaa caaway oo ka soo qayb gashay waxaan leeyahay waa tusaale wacan ay noo suubiyeen walaalaheena iyo dhalinyarada Soomaaliyeed ee gurisamo aadan ugu faraxsanahay maadaama maanta aan guursay gabayr aqooniyaan ah oo aragala oo dabeecad wanaagsan oo aadan ugu faraxsanahay barnaamijkaas adii muddo oo 5 bilood iyo waxaan soo soconay ka badan macnaha ka horna macnaha sheekooyinkeena kala hoose iyo dabeecadaheena iyo barnaamijka waa isfahansan aqoonta laakiin xagga jaceelka barku bilowday 5 bilood iyo waxoogo noo socday